assalaamu calaykum. Waxa uu u dhashay waddanka Jabaan, ahaana midkii Jabaan u horseeday horumarka ay maanta haysato. Waxa uu yidhi, dowladdayda ayaa waxa ay dirtay inaan wax ka soo barto waddanka Jarmalka, gaar ahaan jaamacadda la yidhaahdo University of Hamburg. Waxaa la ii diray inaan soo barto makaanikada iyo sida matoorada loo sameeyo. Jarmalka ayaan aaday aniga oo xambaarsan himiladaydii ii gaarka ahayd ee ku milantay jirkayga, dhuuxana iga gashay ee aan har iyo habeen ku haminayay si aan ku gaari lahaa himiladaydaas oo ahayd inaan sameeyo matoor. Waxaan aqaanay in farsamo kasta ay leedahay shay sir ah oo farsamadaas u udub-dhexaad ah. Haddii aad barato sida moodeelkaas loo sameeyana, gacanta waxa aad ku dhigtay sirta farsamadaasi ay ku dhisan tahay. Macallimiintii waxay baraysay meeshii ay iga bari lahaayeen sida matoorada loo sameeyo, ayaa waxa ay ii siiyeen kutub badan oo ay igu dhaheen xifdi. Ilaa aan xifdiyey wixii ku qornaa, welina aanan lahayn aqoontii aan ku samayn karayay matoor. Waayo farsamo hadal la xifdiyo uma baahnee, waxa ay u baahan tahay in gacanta wax laga baro oo lagugu tababaro, laguna tuso sida wax la isugu rakibayo oo wax la isugu xirayo. Markii aan arko matoor shaqaynaya, waxa uu leeyahay sida hal xiraare aan la furi karin. Layma barin sida wax loo furfuro, sida loo cabiro bir kasta oo ku jirta matoorka. Hadal ayaa lay baraa, farsamo gacan layma baro. Waxaan u hilowsanahay sidii aan ku gaari lahaa inaan matoorka gacantayda ku furfuro kuna xirxiro, bir kastana aan u aqoon lahaa qaabka loo sameeyo looguna rakibo meesha ay ku jirto. Sidaan ku baran lahaa bir kasta, bool kasta, silig kasta iyo shaqada ay qabanayaan. Waxaan u hilowsanahay inaan matoorka hab siiyo, sidii waalid ilmihiisa muddo ka maqnaa oo kale. Inaan is arko anigoo qaba dharka ay ka buuxdo oolyo ama saliid iyo naafato, gacmahaygana aan ku daliigo oolyada matoorka, gacmahayga iyo dharkaygana ay ka soo carafto urta oolyadu. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaan arkay shirkad xayeysiinaysa oo rabta inay soo bandhigto matooro lagu sameeyey waddanka Talyaaniga. Markaas waxa ay ahayd bisha awalkeeda. Waxaanan soo qaatay biilkii la ii soo diray shirkaddii ayaan u tegey. Waxa aanan ku arkay matoor awooddiisu ay leeg tahay 2 faras oo kale, qiimihiisuna uu dhan yahay lacagta bisha la ii soo diray ee aan haysto. Waxaan is idhi, haddii aad lacagta ku gadato matoor bishan, waxaad cunto ma helaysid. Haddaadan gadanina matoorka weligaa ma gaaraysid inaad ka salgaarto himilada inaad matoor samayso. Muddo haddaan fikiray, waxa ila xoog badatay inaan gaajoodo oo aan matoorka iibsado. Matoorkii ayaan iibsaday, gurigayga ayaanan u soo qaatay. Markaan guriga u soo socday, lugihii ayaa i cuslaaday farxad darteed. Waxaan aaminay inaan maanta garabka ku wato wixii adduunka ugu qaalisanaa. Si aan u soo socday, markaan soo gaaray guriga ayaan matoorkii dhigay miis halkan yaalla. Markaas ayaan fadhiistay aniga oo aaminsan inaan guriga soo gashaday shaygii adduunka ugu qaalisanaa. Marna matoorka ayaan fiiriyaa, marna farxadda iga badatay oo aad ayaan u farxaa. Naftayda ayaan ugu sheekaynaya aniga oo ku leh, matoorkan waa sirta ay ku horumareen reer Yurub. Haddii aan sameeyo matoorkan, waxaa hubaala inaan taariikhda iyo nolosha Jabaanba wax weyn ka beddeli doono. Waxa aan naftayda ku idhi, matoorkan waxa uu ka kooban yahay boolal, biro yaryar iyo kuwo waaweyn. Sida loo rakibay waxa ay ku dhisan tahay aqoon iyo isku dheelitir. Haddii marka aan ku guulaysto inaan furfuro islamarkaana aan mar kale rakibo oo uu shaqeeyo, waa tallaabo weyn oo aan hore u qaaday si aan uga salgaaro sirta ay reer Yurub ku horumartay. Waxa aan soo diyaarsaday waraaqo iyo qalimaan. Waxa aan bilaabay inaan guud ahaan aan sawiro matoorka. Waxa aan ku xijiyey inaan bir kasta iyo bool kastaba aan sawiro meesha ay ku jirto, sida uu ugu jiro, iyo inaan tiro siiyo bir kasta iyo meesha ay ku jirto. Dadaal dheer oo ay weheliso daal, rafaad, hurdo la'aan. Waxa aan ku guulaystay inaan furfuro matoorkii. Waxa aan gudagalay inaan xirxiro oo aan rakibo matoorkii. Markaan dhameeyey rakibaaddii iyo xirxiridii, ayaan istaaray oo aan daaray. Markii aan maqlay codkii matoorka oo shidmay, jirkaygii dhan waxaa buuxiyey farxad. Farxaddii aan maalintaas aan farxay waxaan ku qiyaaso ma garanayo. Furfuriddii iyo xirxiridda matoorku waxa ay igu qaadatay 3 maalmood oo aan hal mar wax cunayay, hurdo aad u yarna aan seexanayay. Guddoomiyihii ardayda Jabaan ee wax ka barata waddanka Jarmalka ayaan u tegey oo aan u sheegay inaan ku guulaystay inaan furfuro oo aan xirxiro matoor. Markaas ayaa uu igu yidhi, waa tallaabo fiican. Waxaan hayaa matoor kharaabsan. Waxa aan rabaa inaad hagaajiso oo aad soo saarto cilladda keentay inuu kharaabo oo aad ka dhigto matoorkan mid shaqaynaya.
10 maalmood oo aan nasiino lahayn ayaa iga qaadatay inaan ogaado cilladda haysata matoorka. waxaan ogaaday inay jirto 3 birood oo gubatay isla markaana dhammaaday. waxaan isku dayay inaan 3 birood aan gacantayda ku sameeyo oo aanan dukaan ka soo iibsan. dadaal dheer kadib waxa ay suurto gashay inaan sameeyo 3 birood oo aan ku rakibo matoorka. markii aan ku xiray birihii matoorka oo aan daaray codkii matoorkana aan maqlay, waxaan dareemay raaxo iyo farxad aad u weyn, iyadoo ay weliba hayso daal aad u fara badan, gaajo, hurdo la'aan. waxaasoo dhan inaan u dulqaato waxa ii sahlay shaqada aan hayo ayaa wax walba igala weyn. markii uu ogaaday guddoomiyihii inaan ku guulaystay inaan hagaajiyey matoorkii kharaabsanaa, waxa uu igu yidhi, maanta waxaa lagaa rabaa inaad adigu matoorka gacantaada ku samayso. haddaba si ay igu suurto gashay inaan sameeyo matoor, waxa aan qaatay go'aan inaan ka shaqeeyo meelaha geerashyada ee lagu hagaajiyo matoorada. waxaan xirtay dharkii oolyada badnaa ee ay xirtaan dadka ka shaqeeya geerashyada. waxa aan ku talagalay inaan noqdo shaqaale nugul, karti badan, aan noogin, daalna aan aqoon, shaqadiisa u heelan, iyadoo ay jirto inaan ka dhashay reer ahaan qoys ka taliya waddanka Jabaan. reer boqor ayaa tahay imay diidin inaan ka shaqeeyo garaash. reer boqor ayaa tahay imay diidin inaan meel kasta u maro sidii aan Jabaan u horumarin lahaa. shaqadani waxa ay igu qaadatay 8 sanno oo aan shaqaynayo 15 saac. markay shaqadu dhammaatana waxa aan ku dhihi jiray ninka meesha haysta, waardiyaha igu qor mushaharna kaama rabo. waxaasoo dhan waxa aan uga gol leeyahay inaan habeenkii ku soo jeedo, inaan u dhabagalo bir kasta iyo sida ay u shaqayso iyo sida loo sameeyo. boqorkii Jabaan ka talinaya ayaa maqlay sheekadayda. markaas ayaa uu lacag ii soo diray aan ku iibsado dhammaan qalabka laga sameeyo matoorada. qalabkii ayaan soo dhoofsaday. waxa aan la imid waddanka Jabaan. boqorkii ayaa codsaday inaan u imaado si uu ii arko qada sharafna igu sameeyo. markaas ayaan ku yidhi, ilaa aan 10 matooro ay ku qoran tahay made in Jabaan ama Jabaan ayaa lagu sameeyey aan soo saaro, ma istaahila inaan boqorka qaabilo ama qada sharaf la ii sameeyo. 9 sanno kadib waxa aan ku guulaystay inaan sameeyo warshad lagu sameeyo matoorada. maalintii aan sameeyey 10 matoor oo aan dusha kaga qoray waxa lagu sameeyey Jabaan, made in Jabaan. waxaan u qaaday oo aan geeyey matooradii guriga madaxtooyada. markii la daaray matooradii waxaa soo galay boqorkii isagoo dhoolla caddaynaya. markaas ayaa uu yidhi, codkii ugu macaanaa ayaan maanta maqlayaa. matooro Jabaan lagu sameeyey codkooda ayaan maqlayaa. markii aan indhahayga ku arkay inaan sirtii ay ku horumareen reer Yurub aan Jabaan u soo raray, ayaan seexday 10 saac oo xiriira. mana seexan 10 saac oo xiriira 15 sanno gudahood. haddaba ninka aynu maantoo dhan aynu ka soo sheekaynaynay ee magiciisa ku qoray biyaha dahabka, magiciisa waxaa la yidhaahdaa Tokyo Awzahira. walaalaha qiimaha badanow, ninkani waxa uu ahaa wiil loo diray inuu Jarmalka wax ku soo barto. waxa isweydiin leh, intee Soomaali ayaa loo diray Jarmalka inay wax ku soo bartaan? ma laga helay wiil ninkan oo kale ah? intee Soomaaliyeed ayaa waxbarasho loogu diray waddamada reer Yurub? ma laga helay wiil ninkan oo kale ah? intee Soomaali ayaa waxbarasho loogu diray waddanka Maraykanka? ma aragnay wiil noqday wiilkan oo kale? intee wiilal ayaa deeq waxbarasho loogu diray adduunka daafihiisa? ma aragnay hal wiil oo hankii Tokyo ku jiro? intee wiilal Soomaaliyeed naftooda u halligay isagoo u tahriibaya waddamada reer galbeedka? ma isweydiisay wiilashaasi maxaa ay naftooda u halligayeen? maxaa ay badda u dhaxaysa Liibiya iyo Talyaaniga ugu biimeeyeen naftooda? maxaa ay barafka u dhaxeeya Ruushka iyo Yurub isku biimeeyeen? maxaa ka maqnaa oo ay raadinayeen? ma lacag raadis ayaa ay ahaayeen? ma sharaf raadis ayaa ay ahaayeen? ma aqoon raadis ayaa ay ahaayeen? maxaa ay tahay sababta ugu weyn ee naftooda ay u biimeynayaan? dhibaatooyinkaasoo dhan ay ugu biimeynayaan hankoogu ma gaarsiisnaa inay soo miinguuriyaan horumarka iyo ilbaxnimada waddamadaas oo ay keenaan waddankooga. haddii aad weydiiso dhallinyaro tahriibaysa oo aad ku dhahdo, maxaad Yurub ugu socotaan? jawaabta ugu badan ay ku siinayaan waxa weeye, shaqo raadis ayaan nahay, baasaboor raadis ayaan nahay, carruurta ayaan u soo xamaalaynaa iyo wixii la mida. waxa isweydiin leh, dhallinyaradii Soomaaliyeed hankoogu ma intaas ayaa u noqday? su'aalahaasoo dhan jawaabahooga adiga ayaan kuu dhaafayaa. barnaamijkeennan maantana waxaynu ka soo xigannay buugga astaamaha qofka hanka sare leh uu qoray Cabdifataax Maxamuud Ducaale. wassalaamu calaykum.